militariga Itoobiya ayaa ka tallaabay xadka waxayna gudaha u galeen Suudaan sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan maalintii Axaddii. Arrintan ayaa sii xoojisay xiisadda culaadeed u dhaxaysa labada wadan ee dariska iyadoo muranka xadkuna uu soo taagnaa muddo aad u dheer. Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Diina Mufti iyo wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ee dalkaas Ridwaan Xuseen labaduba suuragal ma ahayn la hadlo fariimo loo diray kama soo jawaabin sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. maalintii Sabtida iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya barteeda Facebook ku sheegtay in ambassador Diina uu dawladda Suudaan ka dalbaday inay joojiso barakicinta muwaadiniinta reer Itoobiya ay bilowday 6 bishii November sanadkii galbaday. Itoobiya ayaa sidoo kale ciidamada Suudaan ku eedeysay inay ku soo xadgudbeen dhulkeeda. isku dhacyo ayaa ciidamada labada wadan dhex maray sanadkii la soo dhaafay. Culaaddooduna waxay salka ku haysaa muranka lahaanshaha dhulka lagu magacaabo Al-Faqasha halkaasi oo ay degan yihiin beeraley Itoobiya u dhashay balse Suudaan ay sheegayso inuu yahay dhul ka tirsan dalkeeda. ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay. waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah. dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111.